السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa daalaca news channel. Daawadii meel soo joogtiin waxay daleenahay kulan wanaagsan. Xubinteena dhacdooyinka la yaabka waxayna ku soo qaadanaynaa haweeney seegeeda u dishay mobile. Haweeney lagu magacaabo Aarti Devi kana soo jeeda gobolka Bihar ee bariga dalka Hindiya ayaa la sheegay inay dishay seegeeda oo mobile ku hadlayay xilli habeenaa kadib markii ay heenaastay. Kala dilo la oran jiray Anil Singh ayaa la sheegay inuu wicitaan ama kool u soo dhacay xilli saqdhaha wuxuuna bilaabay inuu muddo la hadlo qofka soo wacay taasi ay ka carootay xaaskiisa oo hurdada ka soo toostay. Haweeneyda oo aad u careysan waxay ku qaylisay ninkeeda waxayna ka dalbatay inuu telefoonka damiyo si ay u seexato balse seegeeda wuu iska dhiga tiray wuxuuna sii waday inuu mobilkiisa ku sii hadlo. Markii uu ka diiday inuu mobilka damiyo ayay soo qaadatay alwaaxa madaxa sariirta oo ay kaga dhufatay madaxa taasi oo isla markiiba uu halkaasi ku geeriyooday isagoo weli ku sii hadlaya mobilka. Markii ay ogaatay ama ay qiisatay inuu ninkeeda u geeriyoodo dhaawac ay ku dhufatay waxay shilkii ku wargelisay nin ay ilmadeed yihiin oo lagu magacaabo Rafaranjan waxayna dilka seegeeda ku tilmaanisay inuu u geeriyooday sabab aan la aqoonin. balse markii ay marxuumka qoyskiisa weydiiyeen haweeneyda waxa dhacay waxay sheegtay inuu muran dhexmaray kadibna uu isaga isdilay. booliska ayaa loo yeeray waxayna kaxeeyeen haweeneydii dilka geysatay taasi oo baarayaasha boolisku sheegtay sheeko ka duwan dhacdadii sababtay dilka seegeeda. waxay beenisay inay iyadu dishay waxayna boolisku sheegtay inay aaday shaawarka suuliga si ay u soo meerato kadibna markii ay soo laabatay ay aragtay ninkeeda oo dhintay oo sariirta dul yaala. boolisku waxay weli wadaan baaritaanka dhacdaasi ay haweeneydaasi ku dishay seegeeda iyadoo haweeneyda weli ku jirto gacanta booliska halka meydka seegeedana la dhigay qaboojiyaha si loo baaro waxa uu u geeriyooday. si kastaba ha ahaatee hinaasaha haweenka ayaa lagu tilmaamaa mid mararka qaarkood khatar geysta waxaana filayaa in dad badani ay taxadir ka qaadi doonaan oo aysan mobile ku hadli doonin xilliyada hurdada amaba xilliyada habeenkii si aysan xaasasku aysan ugu kicin ama aysan u hinaasin iyagoo inta badan haweenku ay moodaan marka telefoon lagu hadlayo in uu seegeeda la hadlayo haweeney. waxaana jirtaa rag fara badan oo mobiladooda inta laga qaaday ay haweenkooda ay baaraan amaba ay ka tirtireen magacyada haweenka ay ku arkaan iyagoo aan hubsanin in magaca haweenka ay tirtireen inay uu yahay waalid ama ay xigto kale ay yihiin. daawadayaal waxaa intaas nooga dhow xubinteena la yaabka waxaad kala socoteen daalaca news channel.